ciidamada ammaanka ee Somaliland gaar ahaan kuwa booliiska ayaa soo helay gabadhii Oromada ahayd ee sida xun loogu jir dilay gudaha magaalada Hargeysa. Gabadhaas oo ay dileen dadkii ay u shaqeynaysay. Haddaba gabadhan dadkii sidaas u galay gaar ahaan gabdhihii ayaa la soo qabtay waxaana la helay macluumaadkooda oo faahfaahsan. Haddaba maxay yihiin gabdhahani? Maxay tahay sababta gabadhaas ay silacay saxariirka ay ugu mariyeen? Ay quraaradaha iyo dambaska iyo rootiga ay u cunsiiyeen. qodobadaas oo dhan ee barnaamijkeena maanta aynu ku daaqaadaynaa inagoo idin soo gudbinayna macluumaad faahfaahsan iyo waliba loo yarcaana oo ku nool gudaha magaalada Hargeysa oo ka warbixiyay xaaladda gabadhan. hayeeshee daawada intayna barnaamijka u gudagelin haddii channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka. سعيد محمود جهير oo kamid ah looyarada ku nool magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayaa bartiisa Facebook ku shaaciyay inay ogaadeen isla markaana ilaamaha ammaanka ee Somaliland ay ku wargeliyeen dumarkii gabadha Oromada ah u shaqeynaysay ee tacadiga naxdinta badan u geystay taasoo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku abuurtay calool xumo iyo murugo tii ugu weyneyd. muuqaalka ay soo galiyeen baraha bulshada ayaa argagax ku abuurtay bulshada Soomaalida. wararka qaar ayaa sheegaya in dumarka gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada ammaanka ee booliiska ee magaalada Hargeysa ee Somaliland halkaas oo loo geeyay saldhigga magaaladaas oo baaritaan lagu hayo. muuqaalka laga duubay gabadhan oo warbaahinta Halhays Media hore u tabisay ayaa 11 daqiiqo soconaya. haweenkaas Soomaalida ah waxa ay gabadha ku qasbeen inay cunto rooti qalalan oo ay dhulka ugu tuureen kadib waxa ay ku amreen in rootiga ay ku cunto dambas. arrinkaas oo waxyeello caafimaad u horseedi kara gabadhan Oromada Islaamka ee ku nool gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. haweenka labada ah ayaa garaac iyo aflagaado xun isugu daray gabadhaas u muuqatay mid ku nool xaalad gumaysi oo kala ah. mid ka mid ah gabdhahaas ayaa la maqlayaa iyadoo gabadha jaariyadda ku khasbaysa inay xidhato waji xidhka ama face mask corona loo xidho iyadoo sheegtay inay ka baqayso in la xidho ay xidhan ciidamada ammaanka ee Somaliland. gabadha oo ku hadlaysay af Soomaali jajaban ayaa mar gacmaha cirka u taagtay si alle ugu barido inuu ka saaro silaca ay ku jirtay. markii ay cuntay rootiga dambaska leh ayaa waxa ay labada dumar si arxan darra ugu khasbeen inay fadhiga ka kacdo waxaana ay ku cabatay in ay lugta xanuunsanayso oo ay bir uga jirto. dhacdada noocan oo kale ayaa sanad ka hor ka dhacday magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland kadib baraha bulshada qabsatay muuqaalka gabar yar oo jaariyad ah oo si xun loola dhaqmay. caro intaas ka dhalatay ayaa waxa horseeday in gabadhaasi shaqo laga siiyo bangiga dhexe ee magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. haddaba looyarka ku nool Siciid Maxamuud Gahayr oo alaaba u dhaqdhaqaaqa xadgudubyada dumarka gaar ahaan kuwa shaqaalaha ayaa boggiisa Facebook waxa uu ku soo qoray 5 saacadood ka hor qoraala. waxa uu yiri Siciid Maxamuud Gahayr wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland waxa uu yiri wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska u qaabilsan shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha iyo ciidanka socdaalka oo mas'uul ka ah shisheeyaha dalka sharciga ku jooga waa loo gudbiyay xogta gabadhan qiraalka ka xadgudubka ay samaysay oo dhameystiran iyagoo xilkooda gudanaya ayay ila soo xidhiidheen buu yiri. ciidanka booliiska iyo guddida xuquuqul insaanka qarankana waa la gaarsiin doonaa berri insha Allah. arrinkaasina gacanta sharciga ayuu gelayaa haddii eebba ogolaado. cid kasta oo damqatay waxa ay muujiyeen bini'aadantinimo iyo damiir nool. waa arrin ay dawlad shacab iyo ummaddu ay ka midaysan yihiin. tan guud ahaan qofna ma jecla in la duudsiyo in qofna la dulmiyo. ma aha in qof islaama lagu xadgudbo laguna xadgudbo isagoo ku nool gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. haddaba warkaas uu ku baahiyay Siciid Maxamuud Gahayr oo ah looyar u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha gaar ahaan shaqaalaha ku nool Somaliland ayaa waxa ciidamada booliisku ay sheegeen inay soo qabteen dadkii ka dambeeyay gabadhaasi. haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa saacadaha soo socda waraysiyada ciidamada ammaanka ee booliisku ay ka qaadeen. haddaba muuqaalkan like saar si uu gaaro bulshada
fadlan rukumo oo subscribe garayso channelkan si aad noola socoto saacad walba goor walba naagta way ilbaxday dee adduunkiyo waayaha way saaxatay hooyadood wasta iyada dhashay markaali garaacna tane هاي تنقرعني ويستطيع رمضان هنا دافته شقد المسيح عنه أنتم ما يقبل تيار خلاء عنتدي عيال كانوا عنتد تي عيال كم هي نوح عنتي ردي ما يرن وشيلي ردي قلنا سير الله هذا كله ركتي نايا لا ردي نمدي يوسيني يا شو كع أي مكسر سكون بس وهو يدي وبيبوست طبعا هاي هتعرف ما لا لا كع كع نايا كع نايا نايا كع هالي ما عشيني امسح شعر هبا عنيد مو أنت يا مو أنت امسح الشعر هبا عنيد بانكوري ده مو أنت هو ماني كوشو ده نونيش يا ماني كيدش نونيش هالي رودي قلنا صوصها على شتى رودي قلنا سوري مول ما حد جيت تصاحب نوتي رودي قلنا سوري انت ندلنا طاح عنته حبول صوتك ها انت نايا إيه حدا ماسكيga نايا هي لو arkin lay xidhane xidho شو قولي gurguuro ma soo qaadanis fool xumay ahal waar kaleena ku calaashay sida xamba سي ها سي أطور هسين أطور أي ما هنا كده نا أطور إيه أبصر أطور تخسر نايا إيش أطور صوتور كسوقة ها أنت كده ما كسوقة هسي أنا سيني كسوقة قصة أنا كسوقة لا تيجي سوري ما قصة وحاسس قصة ما دارش كوي كده كوي قاعد هيسا كان هسيني ها نايا ها أنا هذا لو كل عضو أساسا على شنية ها أنا قصة روح قصة عن هذا عن نايا هيدي هو يا بعيسى هو يا حاسس أنا بعيش لا داعي يدي ولا شلا داع كده يا كده لا داعي دارته كده لا داع أنا هو عايشة لما تقول عايشة أي ولا السيد داعي هاد شدة شو سنة يا شو دولة سي عكسي فريسة وين فريسة سي دولة سي هاكو دولة معايا ما كنا تاخذ قدرة أنا لعبنا يا قصة ساعة عدنا يا عرب يدي ما سمعت لي دولة يا حبيبي ويك عب كلنا يا كرا بيض كرا ما تقولي عايزي والله هو يطلع عيني والله هو يدمع عينك والله هو يدمع عينك عنا يا عن عشاء لحظة عشاء هو يدمع عينك هاي قبصة عليك هاي قبصة عن إيه واحد حراجة وسودي هكون عنده أنا بقى هكون عنده عشاء الصبح ما وين تشوف سبلتها إذا تشوف سوى كتير يا عم أنت المغربي سيتشوف والله هو يدمع عينك والله هو يدمع عينك
عشاء رخص عشاء هاد أنا وجهي خريان لي حلو قريب وجهي قريب سقط شامدي غوغوسو نايا نا غوغوسو أنا والله بس كده بقى معي سيدي أنا كل شيء لا هيك بقى نايا حديثة كل أفلاف ها أنت واحد لبيع شيء يا ريته حوق إيه قرارات شبعن عنا يا قرارات شبع وإذا بيد ودي ثاني والله وليسا والله ما عنا يا بكل والله عنا هي عن ضاع عن كنت بسقطها غوغوسو كنا لا أنا حاول روبيني شوف نهوغو كنو يوصلنا ورئيسي ده إيش يا دعستي دعسة قلت الجوجو أي جنا أنا خطرنا أنا قهوي بوستو ورمايو كاسة أنا كده وإذا ودي بتعمل وإذا مش هذا وإذا تدمتي ها وإذا رأيت صاحي إلى كم مقام معايا هاي ويدي إلى الصومالي ده ما هو الصومال بس نايا إله أديك وين هنوغي إلهو سيدن عري هبار أبا أوصل لكم من قاعدكم جنين عري هبار نايا سألوا ويديا ها عن بان كاس شمن عن نقصه عن قاضو نا كان قاضو شمن ها علالي لا علالي رديك يوكاي على نيسا والله بر والله بر فيديو دويسا والله يأكل فيديو ولا دويا يأكل فيديو نوين بحريته لا أبسا لا تعبسو لا كبك لوز كريتشو تصدق لوز كريتشو لا كبك بس هاي قفصانين لا كبك عري سوقه بص وانت مقلوب بص ها سوى كديغا كنا كسوى كديغا كدرسن ايا سوى كديغا هيا سوى كديغا كديغا سوى دخسو انا كده احنا كده هغوي هغوي حالت حق انت كده عنا يا دخسو نهردي هغوين دمبسك عن يا دمبسك عن دمبس ها دمبسك عن ها عن هذا فقلي كم كسي انا لقيت انه ودي ما فيه هو كنا كون دونا البنيان اللي ما ضاع بحين اسكدا يا طبعا فيديو يقداس لا عندك صوص شراب نكو قورعه وانا فيديو شديد ما ربي بركه فيديو حياه وانا فيديو شديد عارف انت ضبين عندنا كورقات ما هذا ما يسده كده يقولتي ولا هذا ما يسده ما تقول هو بيت مصطفى فريد خصو عن ما واحد إنسان عنده ساحة ده يدور ليش قيسين يمكن تعلم ما يصير ما هو شجع دعسد أنا قدر أنت ده يتي فيجا فرع ما ترى عروض كده تابني أي سؤال سيجي جيسو كمان إيش ما أنت المغنى ما أنت بنا حتى لو ريد عروض سيء أنت بقى عن إيمان لا بس كل ريد لو ريد عروض سيء أنت عن نايا عن نايا عن لخصو عن كمان إيش والله ديجا هيوكعن ديجا نعم والله نعم ولا حنا نعم نعم والله حسرة القليس عن والله لا عن لخصان عن نايا لخصو عن نعم بختي ما نعم فيديو يبحر كامل دوبي فيديو ديجا هيوكعن أنا وكعن ديجا أيدي أنا قدام بيا لمدوجة بدن بس ترى مدوجة ما هو جبا
نما كوبا نما كوبا كي هرده وهي سوالله ساحالك هلكا ساحه اسكا ساحالك هذا 10 دمه 10 دمه دمه 10 دمه 10 دمه ما كاس ساحنيسا دمه 10 سقط جامدي نايا هو بيل بحريبه ها شاكي برتي ما انت احسن اي فتالدي ما حسي شيء ما كره يجي فرصه بود كع بود اي وابديسا لوقتي وها موميسا ما كع لو تنكاجي استاga doonaysa كريمو كجرتا انا قاشقدي ku istaag ana fuuri ku istaag والله بو بوديسا na ku istaag hada ka ciwiyo lagu istaagaya damad kacaysa كع استاك sacdiye xirsi oo ah gabar Soomaaliyeed darajada manager ka gaadhay shirkadda afraad ee ugu weyn waddankaasi Mareykanka ahna shirkad laga leeyahay waddankaasi Mareykanka oo 160 waddan in ka badan xafiisyo ku leh wana sacdiye oo muddo 8 sano degan oo ku nool dalkaasi Mareykanka sacdiye xirsi ayaa shaqooyin iyo maalgashi uga fududeysay shirkaddan ay manage ka tahay bulshada Soomaalida sacdiye xirsi ayaa gabadh dhalinyaro ah oo kamid ah hormuudka jaaliyada Soomaalida ee dalka Mareykanka haddaba waxaan waraysi la yeelanay sacdiye xirsi iyo waliba qaar kamid ah hooyooyinka Soomaalida ee ku nool qaaradda Yurub iyo dalka Mareykanka iyo waliba dalkaasi Canada balse waxaan maanta ku horeynaynaa habka online-ka ah ee ay ugu shaqeeyaan hooyooyinkani shirkadda ay manager ka tahay sacdiye xirsi hooyooyinka ayaa sheegay inay ka nasteen shaqooyinkii xamaaliga ahaa waxayna aad u ammaaneen garab istaaga ay u samaysay gabadhan Soomaaliyeed ee sacdiye xirsi hooyooyinkan ayaa ah kuwa suuqeeya badeecooyinka shirkaddan ay soo saarto sacdiye xirsi oo ah managerada shirkaddan ayaa ka caawisa bulshada Soomaalida si ay uga shaqaysan lahaayeen shirkaddan iyagoo jooga guryahooda sacdiye xirsi ayaa waxaa hoos taga dad boqolaal qof kor u dhaafayo ku kala nool guud ahaanba daafaha caalamka haddaba bal waxaanu waraysi aanu la yeelanay sacdiye xirsi iyo waliba qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ka shaqeeya shirkaddan waraysi aanu la yeelanay Xaliimo oo ku nool waddankaasi Norway kana mid ahaa dadka ay garab istaagtay sacdiyo ayaan waraysi aanu la yeelanay waxa uu dhacay sida tan adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad bal nooga warbixisaa goortaad shaqadan ku soo biirtay iyo cidda kugu dhiirigelisay magacaygu waa Xaliimo Sheekh Axmed waxaan ku noolahay waddanka Norway waxaan ku soo biiray company-gan 2021 bishii 6 25-keedii warbixinteedii ugu horeysayna waxay siisay Sacdiye Xirsi Sacdiye Xirsi warbixinteedii kadib waxaan qaatay go'aan ah inaan ku soo biiro company-ga dhiirigelin fara badan oo ayada aan ka helay darteed alxamdulillah maantana aad ayaan ugu faraxsanahay maxay tahay qofka raba inuu shaqadan inuu bilaabo marka uu rabo inuu ku biiro shirkaddan manager Sacdiyo door intee leeg ayay ka qaadatay inaad ka shaqaysto shirkaddan oo aad dhaqaale aad ka samayso adigoo gurigaaga jooga company-gan qofka markuu rabo inuu ku biiro waa inuu la yimaado rabitaan iyo go'aan inuu la yimaado ka door qaadashada xagga Sacdiye wax weyn bay ka door weyn bay ku leedahay doorka ay ku leedahayna waxa weeyaan inay ku dhiirigeliso inay warbixin buuxda ku siiso iyo inay waliba ku garab istaagto ay ku kala barto alaabta iyo sida loo isticmaalo inay ku siiso dhiirigelin fara badan oo garabkaada taagnaato sababta qofka garab la'aan waxba ma qaban karo maadaama aad hawsha ku cusub tahay waxay ku furaysaa albaabada hawsha kugu cusub oo dhan sida in alaabta la barto kale sida maxaan ku raahdaa dadka loo diiwaan geliyo sida company-ga wax soo saarkiisa iyo fursadihiisa aad u fahamto ayay kugu sii dhiirigelinaysaa oo ina kuu sheegaysaa marka waa qofka kaliya runtii xaqiiqday company-gan iyo waxtarkiisa ii bayaaniyay ii cadeeyay aad ayaan uga mahadceliyaa markaan xasuusto xataa waan u duceeyaa sababtoo ah wax fiican ayay ii horseeday oo waliba igu garab taagan tahay ilaa hadda marka waxaan leeyahay maasha Allah ayaan leeyahay waan gartay
waxaad tasaasiil naga siisaa ood noga warbixisaa adigoo bulshadana u bandhigaya waxyaabihii ay manager Sacdiyo ay kaa caawisay intii aad shirkaddan ku jirtay. maasha allah Sacdiyo Xirsi oo qof aad u qiimo badan runtii xaqiiqatan bini'aadanimadeeda iyo waxtarkeedu aad banaanka u yaalo. waxaan leeyahay mahadi ha ka gaadho. Sacdiyo waxay iga caawisay xaqiiqatan aniga shakhsiyadayda oo ina ka caawisaa xataa dadka gruubkeeda anigu intaan ogahay inay la samayso inay qofka ay maxaan ku rahaa qofka inuu group uu samaysto way ku adagtaa runtii arrin fudud ma aha ayadu laakiin waxay arrintaasi samaysaa inay dadka ka hooseeyo dhan ay soo kiciso ay soo garab qabato waxay samaysaa inay dadku ugu hoos qorto waxay samaysaa inay dadaadan adiga war u haynin xataa ay ku keento waxay isku daydaa maxaan ku rahdaa inay warbixintaada ay la socoto xaaladaada inay step by step la socoto marka waana arrin fiican waxaa laga helaa qofka wanaagsan oo kaliya yacni intay maalin kugu soo dartay company-gan kaamaysa tegin waxay isku dayeysaa inay weligaa ku garab taagnaato marka waxaan leeyahay Sacdiyo mahadi ha ka gaadho. Seynabe maadaama aad qof Soomaali ah waliba hooyo ah oo waliba shirkaddan weyn ee laga leeyahay dalka Mareykanka manager-ka ah markii aad aragtay aad la kulantay maxaad dareentay jawigaagii dareenkaagu sidee buu ahaa? waa dareen fiican weeyaan runtii aad buu qofka u farxayaa marka uu dee qof u jawaabo luuqadiisa ku hadlayo sababtoo ah company-gan waa wax international ah adduunka dhan joogo dad kala duwan ayaa ku jiro adduunka luuqadaha looga hadlo dhan dad ka kala socda ayaa company-gan ku jira company-ga sharcigiisana wuxuu yahay in qofka uunan direct company-ga u geli karin toosuna u geli karin oo uu soo inuu qof soo mara ay tahay marka maadaama aad doonaysa inaad company-ga ku biirto ood soo gasho de waxaa markaas walwalkaada xagga qofka aad kugu soo aadi doona walwal baa ka jira waad habsanaysaa sababta qof aan kula luuqad ahayn haddaad ID numberkiisa aad isku diiwaangeliso marka dee qofkaasi wax xidhiidha idinkama dhaxayn karo adigana wax badan ayaad u baahan tahay marka inaad qof Soomaaliya aad kuu jawaabo waa farxad waad farxaysaa aad baad u farxaysaa sababtaa waxaad ku hadlaysaa ama aad dantaada aad ku gudanaysaa ama aad ku fahmaysaa waxa aad rabto dhan ku weydiin karto dee baahidaada dhan ku sheegan karto waxaad su-aal qabto dhan weydiinayso qof kula luuqada waa luuqadaadii marka waa kalsooni dheeraad aad helaysaa markuu qof Soomaaliya kuu jawaabo waana arrin fiican